goluhu haddaba waxa uu farayaa gariiqaanka guud ee dowladda federaalka ee Soomaaliya in uu si degdeg ah uga howlgalo horgeynta maxkamadda sare ee dalka dacwad lid ku ah dhammaan talaabooyinka aan waafaqsanayn xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ee uu ku kacay hogaamiyihii hore ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxa caawa uu yeeshay kulan aan caadi ahayn oo degdeg ah oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Xamse Cabdi Barre. kulankan golaha wasiiradu waxa ay ka soo saareen qaraar golaha wasiirada oo ku saabsan Jubbaland. goluhu markii uu arkay qodobada 99aad iyo 100aad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, markii uu arkay qodobka 4aad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee sareynta dastuurka, markii uu arkay qodobka